ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان صدح قفك كسغا وحو هلا إيمانك معانك سأفرصه إيمانك هلا لما أرن إيمانك معانك سبالي معنى هذا وحويان إيمانك معان بولي والنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام صدح قفك كسغا وإيمانك معانك سكوها لو حكم ده أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله سبحانه وتعالى يا رسول كيسو عليه الصلاة والسلام إن يهين كوا أكسيس لوغا شعيل بدنيي لوغا كالقع البدنيي وحي إياغا كصهر أودا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله يبا ليرين قف ضدك أوتش على عضه إلهي درسي سبحانه وتعالى وكليه مسألة ولا الكهل كان كآخرين إيه وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار إيه إنه أنعه إنه قال لما كن نغضه سيدأوا أنعب يهي النار لغرده صدح دان قفك السماء بان لإلهي سيدة بكتهي وحد دمي إيمانك معان فيسي hadduu adiga ku dhadhami waayo waa maxay si ka marab haddii dhadhanka la sheegay laga waayo adaa bukaan ku haya maadada kasta oo la dhadhamiya oo macaanu ku jiro adiga haddii shaygaad wax ku dhadhaminaysa khalal fanni uu ku dhaco iyadoo maadadu macaankeedii wada tabaanad adigu dhadhamin karin hadday kanaaca kugu dhacdo afku ku qadhaadhaado oo malab lagu dhiibo malabku wuu wata quality waa malab sidii baanu macaan laakiin adigu markaad dhadhamiso bukaan kugu jira daraadeed iyadoo organku kiiyay wax lagu dhadhamin jiray carabkii inta wax dhadhamisa intii tahay ayaa hadana khalal fanniyo kugu jira daraadeed waxaad dhadhaminaysaa wax kasta qadhaad sababtu ma aha inaanu shaygu macaanayn sababtu waxa weeyaan inaad adigu ku jirto khalal fanniyo kugu jiro waxaan leenahay haddaad dhadhamin kari weydo macaanka kan haddaad naftaada ka weydo saddexdan uu nabigu tilmaamay qofka ku sugnaaday inuu dhadhaminayo iimaanka macaankiisa macnaheedu waxa weeyaan adigu kugu jira waxa ku qaraadhayay arrintan ay kuugu cuslaatay macaankaasi waxa loogu kala xoog badan yahay sida alle loo kala yaqaano alle subhanahu wa ta'ala sida loo kala yaqaano walidaalika ba quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa إنما يخشى الله من عباده العلماء الله وحكى عبصده هو علم غلبة لليه هو إلهي توحيد كيسا علم في عن أوله والسيدة الدرادين أي النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المامة حديث كي شيخين كورين يا بخاري يا مسلم بقى والله دي انت يقولي جيسا سكتي وحي رفض التصي ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية وحشاكتي النبي يقولون وأقوم بدي دتك على الله سبحانه وتعالى أقوم بدني دتك وأقوم بدي هنا يكرر على صي إنه قال لك عبس بديه وحلنا يدتك سيدي الله وكلا يقانين بقلوب تود وكلا دد من أختها وحن شرعي الشيء قارب دتك قلبي ينجح ومركو ينجح ده حكاية كذا إلهي بالقرآن كل قصت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وحين لنا الصحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام أهل التاريخ أو السير مركي ورين إيانا مكة المامية وحيد هذا نمن بيا هاي مانتي رقعة فرصانة فرضف الله نلشة كغيب قاطو وحسك الدعية ما يهين دادا همبلو زاوية يرفضيو وردي قورغة sida dadka bad ay u qaateen wardigu inuu yeenta meel la fadhiisto tusbax dheer loo tasho dabeetana qowda uu sanqadhiisa laga guro waxay ahaayeen dad nolosha ka qayb qaata oo dagaalama oo jihaasama oo shaqaysta oo xoogsada oo nolosha oo dhan dad hogaamiyay ahaayeen haddana ma yahayn dad adduunya waashay oo maanta dhan intuu soo shaqeynaya habeenkiina ka sii fakeraya بريدك سيدو توسي لها يا صلاة دوسي شرماد لها ساعد دوسي بحسنية وهمجي سوح كحرية دنو يهي بريدها شقادي كعصامة يا يهي مشغولين وين القرى رسي سحراي الهم كله شقاد وايقاضي
shaqada iyo sidii loo qaban lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa maskaxdiisuba ay ku arjasgaraysanto ku xidhantay may ahayn waxay ahaayeen baa lagu tilmaamaa habeenkiina raahibiin bay ku sheegi jireen ahlu taariikh dad habeenkiina alle u go-a subxaanahu watacaala iyo si gaara ilaahay ula xidhiidh gaara alla la leh waxaan rabaa saacaadka ilaahay hortaagaan siday u ekaan jireen inaan wax ka tilmaamno caaisha waxaa lagu yidhi alaswad nin la yidhahda caaisha wuxuu weydiiyey xadiidka imaamu muslim iyo tirmidiba waa warinaya caaishaan waxaan weydiiyey buu yihi maa kaana nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam yasnacu fii beyti markuu nebigu guriga joogo muxuu qabtaa baan idhi bay caaisha la weydiinaya markuu guriga joogo muxuu qabtaa waxay caaisha ku tihi qaalat kana yakunu fii mihnati ahli reerku u shaqayn jiray bay reerkuu guriga jooga dee reerkii lala joogo reerkan shaqada buu qaybtiisa qaban jiray laakiin caaisha u fiirso waxay leedahay faidaa xadarat asalaatu yatawada wayakhruj ila asalaa salaada waktigeeda marka la gaadho intuu weysaystaa buu salaada u bixi jiray waxaan rabaa saacadan uu caasho u shaqaynayo ma raba inaan ka warramo caawa waxaan rabaa saacadan uu salaada tukanayo iyo nooc u eka waxaan rabaa inaan tilmaamno saxaabadii ridwaanullaahi calayhim la noolaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qaadatay qur-aanku isagoo cusub oo xagga alle ka yimid aragtay dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu uu gacantiisa ku tarbiyeeyey salafku maxaynu u leenahay salafulumma dadka way ka roon yihin ardaygu kama soo hadho macallinka cilmiga macallinka oo qura maaha macallinka waxa laga qaata wax tarbiya la yidhaahdo oo cilmiga ka ballaadhan raggani waxay ahaayeen saxaabadaahi kuwa macallinkoodu yay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo isagu gacantiisa uu ku dhilay mid walba uu jafay waxa xuna uu leeyahy uu ka nahiyey waa aragteen waxa qur-aanka iyo axaadiista asbaabu nuzuul ku jirta waxaana asbaabu nuzuuli waa afcaashay samaynayeen saxaabada tani oo maalin walba la saxaya khata dhacayay hebel baa waxaan sameeyay aayad baa soo degtay heblayaa sidan tiri aayad baa soo degtay qola isqabato aayad baa soo degtay afcaal maalin kasta dhacaysay baa la jafayay oo dabeetana waxyigu uu saxayay raggani waxay dad kaga mudnaadeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa tarbiyeeyey cidda macallinkiisii gacanta ku hayay uu yahay nebi moxamedna waxaad garan kartaa noocuu noqon karo waad imaajin garayn kartaa waxaan leenahay kuwaasi siday ahaayeen waxaan rabaa inaynu eegno saacaadka ay alla ka cabsanayaan ama nebiga la joogaan siday u ekaayeen waxaa kugu filan xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee uu nin saxaabada ka midi uu ku lahaa nin kale yacni waxaa la yidhahdaa xandala ayaan rajaynay inuu ahaa iyo abibakar ayuu yidhi war maxaad kuwaa barisato naafaqa xandala buu yidhi waa munaafaqoobe abibakar baa ku yidhi war waxaaad ku hadlaysaa waa wax xune dabeetana qisadii buu u sheegay wuxuu yidhi markaanu ilaahay rasuulkiisa la joognana nooc kalaanu nay xaal baanu ku sugannay markaanu nolosha iyo mashquulaadkeeda gallana waxbaa iska kaayara bedelo xaal kale ayaanu ku sugannay abubakar wuxuu yidhi wallahi hadday dee taawantay waxaad sheegaysaa taa lafteedu xaggayga waa ka jirtaa waxaa loo yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi markaa waaladii nafsii biyadihi أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة صاعة وصاعة نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتو النارطي أيوه حلي إله نفتيد قعنتي سكتر تام كل نارطيه هدا كواري لهيدين waxa aa ku sugan tihiin marka aniga ila joogtaan ee zikriga iyo alla xuska hadaa ku sugnaan lahaydeen malaa'iktuba waxa idinku salaami lahayd wadooyinka iyo furshaantiina korkooda laakiin xandalo buu nabigu yiri faa'a wa faa'a eraygan u fiirsaw nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam faa'a wa faa'a waa maxay ma faa'a fi al-haram wa faa'a fi al-halal ba يعني dadka badba marka la yiraahdo saaca wa saaca waxay u qaateen saacna in masaajidka la tago ilaahay la yara caabudo saacada damana waxa doonta in la sameeyo suuqa la galo maaha qofka muslimkii daa'iratul halal marnaba kama baxo waxa loo baneeyay marnaba kama baxo ee iyadoo xalaasha lagu dhex jiro
ayay saacaadna waxay yihiin saacaad uu qofku alle toos uula xidhiidhayo oo nolosha adduunyo dhammaanteed madaxiisa ay ka maqan tahay oo heer kale uu gaadhsiisan yahay uu gaadhayo heerkaasi uu nebigu leeyahay haddaa ku daa'imi lahaydeen malaa'igtaaba idin salaami lahayd saacadna waa saacad qofku wixii loo baneeyey uu ku mashquulsan yahay ee xalaashaha ee loogu talagalay hadday xoogsi tahay iyo hadday reerkiisa ula ciyaaro tahay iyo hadday wax kala tahayba waxaynu leenahay nolosha imika dadka waxa inta badan ka maqan saacaadkan xalaashii caamka dadku inta badan uu iska hayaa laakiin saacaadkaasi laa tagsi kuma filla qofka raba inuu nolosha tan waajaho raba inuu ummadda tan ka saaro dulumaadkay ku jirto rabo inuu gaale iyo shaydaan iyo waxa raacsisan oo dhami ka hortago wuxuu u baahan yahay saacad gaar ah wuxuu u baahan yahay saacad maskaxdiisa adduunku ka maydhmo saacad aan adduunkani u muuqan dhammaantii intuu ballaciisu leegyahay wuxuu u baahan yahay saacad jannada iyo naartu ay u muuqato iyo alle subxaanahu watacaala faqad wax kale oo uu xisaabiya aanay jirin saacadka haddii la waayo nolosha hoos bay usii soconaysaa saacadkani waa saacadka qofka muslimka ah oo ah zaad oo ah wax ku kalifaya inuu nolosha ka halgabo waayo dadka kale markay himiladay dunida kala hayeen hore u waayaan weyn iyo sabaan wax isdile iyo wax iska fadhiista iyo wax quusta laakiin muslimku quustaba ma yaqaano ilaahay baa quraankiisa wuxuu leeyahay kuwa quusta waa kaafiriinta لا تيأسوا من روح الله بلي سببت وامحي سببت وحويان قفكني وحو ستو سوق حديا الله سبحانه وتعالى قفك الله حديد دب الله لهنا قوستا نلشي سكمشر وحين لنا وحين ربنا إني وحكوه قانو حنظله وحل يدي ساعة وساعة ساعة هجرسو أدهير كاملايك سلام كاقاري كرتو ساعة عروس يدمر كي حولاكم مشغول كرتانها هجرسو